hotel guuleed ee magaalada Hargeysa waxa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu shaacinayay musharaxnimada Mujaahid Maxamed Axmed Xaashi Maxamed Weere oo u sharaxan golaha deegaanka caasimadda Hargeysa iyo Saciid Maxamed oo Cismaan oo isna u sharaxan golaha wakiilada kaasoo ka sharaxan gobolka Maroodijeex waxaana labadan musharax iska soo sharaxeen xisbiga mucaaridka Ucid munaasabadana waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka Ucid Engineer Faysal Cali Waraabiye hoggaanka xisbigaasi iyo xubno ka mid ah mujaahidiintii ururka SNM ee dalka xoreeyay siyaasiyiin aqoon-yahano dhalinyaro odayaal waxgarad iyo taageerayaal tiro badan oo soo buuxiyay hoolkii lagu qabanayay xafladaasi intay munaasabadaas socotayna halkaasi waxaa laga jeediyay hadallo kala duwan ugu horreyna halkaasi waxaa ka hadlay odayaashii waxgaradka soo xulay musharaxiintaasi iyo qaar ka mid ah mujaahidiintii ururka SNM siyaasiyiin iyo haween وحطينا بحد ما يوديشها عبد الله سعد في الصوق الله وحملنا يا جماعة حطينا بحد ما يود حمل ولا حماق هذا لما ذا مشاهد عم صوح حر يعني حل ما هو حر وحملنا هاي ورهديات برونتن كاكو صوب بحضان وإلهي لسوء سارة أمانة وإلهي يقول دردار مياه لبنا مرشح نودي وطنا ومجاهد كيوينا محمد ويرا أضو ذكرنا إنسان طلق تعب سوي لي إيوه إنجنير سعيد محمد وعثمان وأنا قصوح الله أقوم حيل دير فيصل وحا كويلي وحا أمانتي وحا أمانات بشي هرموتكي لبنتي ليش ومالي دارمان لين الجيسة المشاهد محمد ويره إذا هو قدر صلى الله ما أنت هالجيسة اللي نهوس صح ما شفت وحنا وامن نفتينا يودكينا يوبتكينا أنت هو من إنسان محمد وقبل في سنة وإذا عارف الدوثان أنت أنا خلاص عليه لا يعني قيمها وديك مجاهد كهلية هدان لا قرن أو أنا حكومة قرنين أو أنا دك قرنين تروح لو هي عيد سبعين دوا بلا بعد. dhankooda iguna halkaasi waxaa ka hadlay musharax Maxamed Axmed Xaashi Maxamed Weere iyo musharax Saciid Maxamed oo Cismaan anigoo ah injineer aqoon iyo xirfad u leh farsamada civil engineering-ga gaar ahaan qaybaha public work iyo town planning-ga isla markaana aad u danaynaya ka qayb qaadashada dib u dhiska dalkayga hooyo jecelna inaan uga faa'iideeyo khibradda iyo waayo-aragnimada aan leeyahay waxaan maanta jeclaystay oo guddiga ujeeddadaydu tahay in aan shaaciyo musharaxnimadayda golaha wakiilada ee gobolka Maroodijeex ee lagu soo fool leh كلام الله تقيا حسب الوعد أو ركي دباتو نسوق يعني أمورني وصفي عن نوصل بوي أنا كلام مالتي دويتو وراقها يروح كلنا وحري بشي سجالات الله شجير أنا بهاي مشارك dhibaato kasta ha dhacdo January ayaa waraaqaha in la kasagiraya waxa jira oo dhici jirtay waxa la yaabi jiray laba arrimood ninka intuu xisbi ka baxo xisbi kala gala iyo ninka ilaa caaqil baan sameynaya ama sultaan baan sameynaya waayo ma dareemay waxa ku kalifaya laakiin imika labadiiba waan soo taabtay dambeyn halkaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka Ucid Engineer Faysal Cali Waraabe iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xisbigaasi marka aad waxaan soo dhaweeyaa musharaxiinta haddii la haysto asalka uu ahaa Hargeysa ee deegaanka uu ahaana waa inaynu labada musharax aynu taageerada iyo codkeena u siinaa xisbiga Ucid haddaan nahayna waan soo dhaweeynaa ومريه كل مية إنه قبيلات تبغون نقلنا وعيدنا نوليسكي يوحلا بدا استعماله أو حسب جواد ويهشوا إنه عدوا طورنا يسقوا كانوا وأركي سينمكا
mujaahid weere calaacalka ka dhacay in loo gacan geliyey dimuqraadiyaddii aynu doonaynay dad aan ehel oo ahayn loo gacan geliyey maaha waa in awoodda uu xusbigu yeesho oo uu la soo baxo dadkii dalkan iyo dadkan hoggaamin lahaa maaha in beelo lagu soo xulo anu mabda'iyan sidaasaan aaminsanahay dee markaa beeshani markii aan ay yimi la yidhi beeshi musharax ma leh waaba naxay moogta waxaan idhi waa dawlad musharaxiin laga waayo oo reer Hargeysa Makaayil iyo Cabdalla Sacad waxbaa qaldan baan ku yidhi moogta waxa intaa ka daran marka la yidhi baasha Cabdalla loo diiday xusbiga kulmiye taas ayaa bay keentay haddana waxa yimi mujaahid maxaan weero keligii buu yimi war maxaan qasiis waxaan rabnaa musharaxiin war mujaahidiintii ma xaq weyn noqotay waan mujaahidiintii ilaahay baa xaqsoonay subxaanahu wa ta'aala ismaan axmed ismaan sabti Hargeysa